waxay saaxiibo ahaayeen muddo aad u dheer waxaana ay ka fakarayeen sida ay u midayn lahaayeen fikrado kala duwan oo midba midka kale la wadaagayay una samaysan lahaayeen sharikad ganacsi kadib fikradahaasina guuleed iyo saaxiibkii ayaa waxay go'aansadeen sida ay u baran lahaayeen xirfado kala duwan oo farsamada gacanta ah sanadku waa 2019 waxaana ay ku biireen dugsi lagu barto farsamada gacanta oo ku yaala magaalada Berbera laguna magacaabo Yuvanco Technical and Vocational Institute waxaana halkaasi ay ka barteen xirfadda kalluumaysiga iyo ganacsiga kalluunka haatan waxa la gaaray waqtigii ay hirgelin lahaayeen guuleed iyo saaxiibkii Cabdixakiin hamigoodii waxaana ay bilaabayaan shirkad haatan iibisa kalluunka shaqaalaha shirkadda lagu bilaabayaana haatan waa 2 qof oo kaliya dhanka dhaqaalaha ay rabaan saaxiibadana inay shirkaddan ku asaasaanna waa mid aad u yar waqti xaadir kale balse haatan 2022 shaqaalaha haatan ka shaqeeya shirkaddan kalluun ee maasha Allah fishing ayaa waxa ay maraysaa 19 qof haddaba maanta waxaan safar badda la geli doonaa saaxiibadan waxaana aan bal maanta eegi doonaa waqtina kula qaadan doonaa sida loo soo jilaabo kalluunka shirkaddan ay asaaseen ay ka shaqeyso guuleed oo ah maamulaha shirkaddan maasha Allah fishing ayaa ka waramaya xaddiga kalluun ee ay soo jilaabaan isaga iyo kooxdiisu marka weeyii ilaa waxa weeyaan 3 ama 3 tan meelaha soo gudbira meelada waxaan dibadda u dirnay waxaan dadku mararka qaar waxa soo wajahda kooxdan soo jilaabaya kalluunka khatar aad u waaweyn saacado kadib waxaan ku noqonaynaa dekadda kalluunka ee Berbera goordhowna waxa la bilaabayaa in laga soo rogo laashka kalluunka kala duwan ee uu sido saad haatan wada arkaysaan kani waa mid ka mid ah noocyada kalluunka badda ku jira ee la soo jilaabay waxaana deegaanka looga yaqaanaa boqorka kalluunka magaciisana waxa la yiraahdaa deereg haatan joognaana waxa weeye xaruntii kaydka kalluunka daqiiqada ka hor waxaanu joognay dekadda kalluunka ee magaalada Berbera oo ah halkii kalluunka markii la soo jilaabay la keenay halkanna waa xaruntii iibka kalluunka oo daqiiqada kadib uu ka bilaabi doono iibinta kalluunka kaasi oo xitaa la gaarsiin doono qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland guuleed iyo saaxiibkii Cabdixakiin ma ilaawan inay muhiim tahay in dhalinyarada ay shaqaabuur sameeyaan ayuu kulli maanta anagu alxamdulillah meel fiican aan taaganahay waana awoodi karnaa inaan gaadiidano anagu leenahay iibsano oo aan shaqo geysano isla markaana wixii anagu aan isu yeelno balse taa waxaan anagu ka doorbidnay inaanu maalgelino gaadiid ay dadka leeyihiin si iyaguna wax soo saarno u helaan shaqaana u helaan guuleed oo isagu ah maamulaha guud ee shirkaddani ayaa fariintan la wadaagay waxaan ku dhiirigelinay cid kasta inay khibrad yeelato farsamada gacantana runtii la barto iyo skillska nooc xirfadaha kala duwan sidoo kale bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa ganacsatada ama halabuurka noqonaysa ganacsigu barbirow iyo waxa weeyaan meel fiican oo ku guuleystay dhexdhexaad normal inta uu leeyahay marka inaanay qancin kana waxa weeyaan niyad jabin shaqada gacanta ku hayaan laakiin ay yeeshaan samir badan u yeeshaan oo ganacsigooda ay kaga madhaliyaan farsamada gacanta ayaa noqotay mid kaalin xoog leh ka qaadatay inay isbeddel nololeed sameeyaan ganacsi u gaar ahna ay abuuraan guuleed iyo saaxiibkii Cabdixakiin iyagoo ka faa'iidaystay dugsi lagu barto farsamada gacanta oo lagu magacaabo Yuvanco Technical and Vocational Institute oo ku yaala magaalada Berbera muhiimadda ay labadan saaxiib u asaaseen shirkaddani iibisa kalluunka ayaa waxay tahay inay badan yihiin fursadaha ganacsi ee kalluunka ee guud ahaan deegaanada Soomaalida maadaama ay deegaanada Soomaalidu leeyihiin xeebta ugu dheer Afrika muhiimadda muuqaalkeennan ayaa daawade ah haawad awoodaa haddii aad dadaashana waxaad sanado gudahood ku horumarin kartaa ganacsigaaga ku gaarka ah waa tahay ayuubahanna waxaan uga ka bartay Cabdixakiin iyo guuleed in saaxiibtinimada wanaagsani ay dadka gaarsiin karto meelo fogfog isla markaasina saaxiibka wanaagsani uu gaarsiin karo guulo waaweyn ku xunno Ayuub Show